inaynu isugu imanno xafladan aadkii aadka u qiimaha badan leh ee loogu talagalay ay soo qabanqaabiyeen ardayda sanadka dambe ka qalin jebinaysa kuliyadaha caafimaadka ee jaamacadda Camuud si ay ugu dabaaldegaan kaalinta koowaad ee ay gashay kuliyadda medicine-ka ee jaamacadda Camuud qiimayntii lagu sameeyey kuliyadaha medicine-ka ee Somaliland kow horta muxuu ahaa aasaaskii qof kaliya hadii ma lahayn waa la badnaa laakiin waxa number 1 waxa Dr. Qaws u duceeyay Ilaahay inuu caafiyo sideedaba safar dheer ayaa la soo maray oo dhibaatooyin badan inta adduunka la joogana safarkaasi wuu soconayaa ilaa inta la gaarayo dhamaadka adduunka nolosha waxa aad u qiimo badan waa nabadda iyo ammaanka quruxda maanta waxaad ku fadhidaana waa nabadda iyo ammaanka ka jira deegaankeena iyo Soomaaliland oo dhanba taas oo inoo soo tagelisay meesha aan joogno iyo horumarka aan sameynay tirada dhalinyarta ah ee gabdhaha iyo inamadaba iskugu jira ee halkan fadhiya waxay ka wada yimaadeen dhammaan deegaanada geeska Afrika ee af Soomaaliga lagaga hadlo waxay ka yimaadeen gobolka Somaliland kamida Soomaaliya Djibouti deegaanka Ethiopia iyo North Eastern region of Kenya intaba way ka yimaadeen waxa ku tusaysaa taasi markaa inay kulmisay maanaha labeentii dadka af Soomaaliga ku hadla kuliyadaha caafimaadka waxaan bilownay sanadkii 2001 waxaan ku bilownay 2 lecturer iyo 15 arday maanta waxa ku jira 1315 arday waxaana ka qalin jabiyay 1130 ayaa ka qalin jabiyay waxa ka dhiga macallimiin gaaraysa 73 oo isku jira muxuu ajaanib iyo Soomaaliland kun iyo 130 ka qalin jabiyay waxay ka kooban yihiin dhakhaatiir oo tiradoodu dhan tahay 235 nursing and midwives oo 419 takhaatiirta ilkaha oo 99 lab technicians 131 pharmacist 95 public health 153 kuliyadaha caafimaadka ee jaamacadda Camuud waxay ay gaareen dhammaan 3 stage ee waxbarashada xirfadayaasha caafimaadka oo ka kooban undergraduate postgraduate iyo continuing professional education oo intuba ay ka socdaan campuska kuliyadaha caafimaadka kuliyadaha caafimaadka ee jaamacadda Camuud waxay ka mid yihiin ururada caafimaadka adduunka ugu caansan waxa ka mid ah FAMR Foundation for Advancement of International Medical Education and Research cidda xubinta ka midina waxa uu suurtagala dhammaan tartanada imtixaanada ee laga gala adduunyada wadamada adduunka laga galo inay ka qayb galaan sida Mareykanka Great Britain Ireland Canada iyo wadamada kale oo dhan waxaana ugu dambeeyay Dr. Roble Aadan Daahir oo ka baxay halkan 16kii oo wiigii aynu soo dhaafnay ka galay tartan Ireland groupskii dhakhaatiirtii oo la galay
ee meel walba adduunka ka yimidana aw isagu ugu sarreeyay waxay ku tusaysaa tayada iyo aqoonta dadka muxuu ahaa ka baxaa kuliyadaha caafimaadka ee jaamacadda Camuud. waxay kale ka mid tahay Association of Medical Education of Eastern Mediterranean Region Amir baa la yiraahdaa iyada founder baan ka nahayba kama midniin laakiin founder baan ka nahay. waxaan kale ka mid nahay Sub-Saharan African Medical Schools Organization SAMSABA la yiraahdaa Islamic Education and Scientific and Cultural Organization and Arab Medical School Association. intaasoo xubin yani organization ugu caansan adduunka intaba ka mid baan nahay. waxaan xiriir la leenahay ururo badan cusbitaallo iyo jaamacado ay ka mid yihiin WHO waxay ictiraafna siisay markaan ku jiray sanadkii saddexaad waa waxaan wali adduunka marnaba ka dhicin. waxay noo suurtagelisay safarkii ugu horreeyay ee aan ku aadno dibadda waddanka Suudaan aniga iyo gudoomiyaha jaamacadda Professor Saleebaan. arrinkaas wuxuu noo suurtageliyay inaan xidhiidh la yeelano jaamacadaha wadamada Afrika iyo Carabta kuwa ugu tayada badan leh. waxa kale noo suurtagelisay inaynu curriculum-ka ku sameeyno review oo uu qaato jihada imika u socda ama uu ku jiro. waxay fursad noo siiyeen inaan ka qayb galno tababaro dhinaca maamulka iyo dhinaca macallimiinta. anigana waxay igu deeqeen sponsorship aan ku bartay medical education masterka aan ku qaatay. waxay naga caawisay inaan ka mid noqono World Director of Medical Schools 2006 iyadoo oo wali laga kala qaybin kulliyadaha caafimaadka. waxay free nagu siiyaan website ay leedahay Hinari oo dhammaan dawladaha Carabta bixiyaan lacag badan oo awoodeena ka baxsan lagana helo dhammaan textbooks-ka caafimaadka journalada iyo research-kii ugu dambeeyay kuwaasoo kordhinaya aqoonta macallimiinta iyo ardayda. waxa kale in xidhiidh la leenahay Tropical Health Education Trust ama TET oo ah hay'ad degan Great Britain kana shaqeysa isku xidhka ama partnership-ka jaamacadaha iyo cusbitaalada iyo jaamacadaha dhexdooda isku xidhan. waxayna ka shaqeeyaan tababarka xirfadlayaasha caafimaadka ee wadamada soo koraya. waxayna noo suurtagelisay inaan xidhiidh la yeelano King's College Teaching Hospital of London oo lafdhabar u ah maanta kuliyadaha caafimaadka. waxay naga caawisay teaching materials-kaan isticmaalno intiisa badan hay'addaasaan siisay. waxay noo dhistay Oxy Exam Center-ka oo ah midka ugu casrisan ee ku yaala deegaanadan. Oxy Stations-kaasi waxay wada leeyihiin CCTV cameras arrinkaasoo lafdhabar u ah imtixaanada rikoorkooga iyo tababarada ardayda la siinayaba. waxa kale noo qalabaysay Educational Development Center-ka oo ah xarunta lagu tababaro macallimiinta lagana hago curriculum-ka monitoring-ka evaluation-ka assessment-ka educational programs-ka ka socda kuliyadaha jaamacadda Camuud. waxa ay kale noo dhistay Clinical Coordinator Office-ka cusbitaalka ku dhex yaala ee laga hago clinical coordination-ka. waxa kale xiriir la leenahay King's College Hospital waxay buuxiyaan meelaha gaabska ku leenahay curriculum-ka marka laga soo bilaabo sanadkii 2002 ilaa maanta. waxay naga caawiyaan xagga bedtime teaching-ka iyo clinical rotations-ka. waxay qayb libaax ka qaataan final comprehensive exam-ka laga galo kuliyadaha caafimaadka. waxaan u yimaadaan as external examiners
marka laga soo bilaabo sanadkii 2007 ilaa imika oo jaamacadda Camuud kuliyadaha caafimaadku ay hadda iskaga filaadaan ay u yimaadaan inay ka war hayaan laakiin inta badan gacanta imika ku hayso macallimiinta kuliyadaha jaamacadda Camuud waxay mas'uul ka yihiin tababarada macallimiinta ka dhigta kuliyadaha caafimaadka oo hadda barnaamij baa u socda lagu qaato medical health professional education lagu qaato oo ka kooban certificate diploma master oo ninkii waddanka xataa ilaa PhD wadayo waxa kale tababaraan maamulka manaha kuliyadaha jaamacadda Camuud iyo kuliyadaha kale jaamacadda Camuud isagoo isku jira isaguna diploma iyo certificate isku jira waxa kale xidhiidh la leeyahay Sombraf waa hay'adda gacanta ku haysa family research ka socda jaamacadda Camuud ilaa 12 jaamacadda Camuud waxay samaysaa community service laga soo bilaabo 2005 waxaana loo shaqeeyaa dadka ku nool meelaha science-ka ay ardaydu tagaan iyadoo ujeedadu tahay in dadka loo shaqeeyo iyo in ardaydu barato dhibaatooyinka caafimaad ee bulshada si ay u bartaan sida looga hortago inay dadku bartaan dhaqanka qaabka ay u nool yihiin dadkaasi tirada faamiligu raadka ay ku leedahay caafimaadka iyo qaabka ay u raadsadeen daaweyntooda health behavior oo markii aynu bilaabaynay dareemacaane survey-gii laga sameeyay markaad weydiiso dhammaan dadka deegaanka degan qof walba markaa weydiiso xageed u tagtaa caafimaadka wuxuu ama saxiloolan u tagaa ama faaliyan u tagaa ama wadaad baan u tagaa iminka hadaad u tagto dhakhtarkayga yara wanaagsan baan u tagaa bay qoranayaan waxa ka tusaysaa taasi maraha inay isbedeleen qaabkii ay u raadsanayeen caafimaadkooda dadweynaha meelaha ku nool waxaa la siiyay daryeel caafimaad oo isugu jira daaweyn baraarujin caafimaad talaalka carruurta 5 sano ka yar ilaalinta nadaafadda iyo iska ilaalinta qashinka iyo daryeelkiisa meelaha waxa lagu daryeelaa 1825 family arday walbana inta badan wuxuu xoriyay 1 ilaa 2 family ayuu ku xoriyay dadka يعني hawsha loo qabanayo 90% waxa bixisa ardayda kuliyadaha jaamacadda Camuud kuliyadaha caafimaadka jaamacadda Camuud arday walbana waxay bixiyaan semesterkii $8 marka 4 bilood semesterka nin walba habeen buu cashay iska day gabadh walba iyo wiilba habeen buu cashada iska daaya $2 deetana waxay ku caawiyaan dadweynaha halka degan arrinkaasina wuxuu keenay guul aada dad badan oo masaakiinana oo awoodi karin inay soo gaaraan cusbitaaladana wax badan bay u tartay waana tagi kartaan waana soo arki kartaan isbedelka halka ka dhacay guulaha la gaaray waani ku bilaabay waxa la soo saaray daa cusub oo xirfadlayaasha caafimaadka maalintii ay bilaabayeen kuliyadaha caafimaadka muxuu ahaa xanuunada dumarka ama cesarean sectionka Dr. Qawsu baa sameeyay maanta haddaad magaalada Boorama dib ugu noqoto iska daa banaankayga marka laga bixiyo haddaad dib ugu noqoto oo yaraan 30 dhakhtar oo arrinkaas sameeyay helaysan Dr. Ismaaciil iyo Qawsi Boorama ugu dambeysay meesha ay galaan arrinkaas aan keenay xirfadayaasha caafimaadka marka la soo saaray waxay ka shaqeeyaan dhammaan gobolladii aan horey u sheegay oo dhan wax badan way ka bedeleen yaani daryeelkii caafimaadka waxa isbedel xoog leh ku sameeyeen bixinta daryeelka caafimaadka iyadoo kor u qaadeen tayada daryeelka haddii aan tusaale u soo qaadano gobolkeena Awdal iyo Solol haddaan tusaale u soo qaadano gabdhaha community midwife ee ka baxay kuliyadda nursing and midwifery waxay distributor ku yihiin dhammaan tuulooyinka gobolka marka laga soo bilaabo sanadkii muxuu ahaa 16 intii koorsi waxbay baranayeen afartii sano u dambeysay waxa sharciya
gabadha tuulada laga soo qaadayaa inay halkaa degan tahay waxayna saxadaa heshiis inay 2 sano u horeysa ay tuulada joogayso deetana marka dambe ay soo noqoto deetana waxbarashadeeda loo sii wado gabdhahaasi waxay ku guuleysteen inay caawiyaan 25,520 dhalmo waxay soo gudbiyeen oo cusbitaalada u soo gudbiyeen si dhibaatooyinka ka soo gaadhi jiray loo saxo 435 case waxa ka dhintay muddada 3 sano u dambeysay 35 dumar waxa la yiraahdaa wadamada soo koraya boqolkii kunba waxa ka dhinta 1400 marka tirada imkaad soo saarto imsa dhibaatadu ma haynaysan marka ratio ay intay noqonaysaa less than 10% weeyo maxay ku tusaysaa taasi in la gaaray macnaha wadamada horumaray halkii ay ka gaadheen daryeelka hooyada iyo dhalaanka waana wax ilaahay loogu mahadnaqo inoo suurtageliyay inaan arrinka gaadhno waxa kale gaadhnay in gobolada awdal salal gabilay iyo maroodijeex badankeega in laga yareeyo laga tirtiray xanuunkii fistulada ama kaadi furanka waxa hawsha qabtay muxuu ahaa National Board of Hospital oo kamida cusbitaalada teaching hospital ay u simaatay jaamacadda Amuud inta ka shaqeysa ee hawsha qabataan ama dhakhtar ahaato ama nurse ahaato ama pharmacist ahaato ama lab ahaato dhammaan waxay ka soo wada bixin jaamacadda Amuud yaa shaqada qabtay marka jaamacadda Amuud waxa kale kulliyadaha caafimaadku gacanta ku hayaan hadda 10 sano u dambeysay daaweynta dadka xanuunada dhimirka qaba waxa lagu bilaabay xaafadda Sheekh Cusmaan imika magaalada Booramo dhawaan la gaaray Baki iyo Dilana waa la gaaray guri walbo xaaf kamida meelahan soo sheegay oo ku yaala gudaha loo galay gabdho ajaacada Amuud train gareysay ayaa hawsha qabta waxaana iska kaashada fandiga waxa bixiya SSRA waa hay'adda Suulishaas Society of Somali Suicide Research Association iyo jaamacadda Amuud mishaarkay bixiyaan laakiin muxuu ahaa transportka in administrationka coordinationka dhammaan waxa bixisay jaamacadda Amuud waxay eegeen dadkaasi 489 guri ayay galeen waxa la daweeyay 2309 waxa dawo joogta ah la siiyaa xanuunka suuxdinta leh epilepsy 703 case oo isku jira caruur iyo ciroolaba 1 sano ilaa 9 sano iyagana dawo joogta ah la siiyaa waxa laga furay silsilad 227 oo dadkaas qaarkood 30 sano ku xidhaayeen silsilad maantana suuqa ay joogaan way xaragoonayaan waxaan xasuustaa inaan hadda isbitaalka joogay wuxuu yiri anoo iska caafimaad qabo garanaya waxay hayaan ayaa maalin intoo la xidhalay karbaashi jiray buu cid ii soo gurmatana ma jirin buu cid fahmaysa waxaan dhibaato qabaana ma jirin buu maanta wuxuu ka shaqeeyaa cusbitaalka isaga daryeela bukaanada wuxuu ku ahaa raga dhowr iyo 20 sano silsilada ku xidhan buu hayay kulliyadaha kale ee jaamacadda Amuud
intaana caafimaadku ma huraye waxay soo saareen macallimiin badan dhaqaalayahan badan sharci yaqaan aqoonyan badan oo xagga beeraha xagga environmentka xagga rural developmentka waxayna ku sameeyeen isbeddel xoog leh oo dhinac walba gobolkeena iyo Soomaaliland iyo Soomaalida oo dhan maanta magaalada Boorame aynu joognaa waxa weeye waa magaalooyinka ugu bilicda badan leh deegaanada Soomaalidu ay degaan waa magaalada loogu hiigsi badan yahay ee qof walba raadinay intuu yimid waxaa dhalinyarada arkaysaan waxay ka yimaadeen dhammaan gobollada aan sheegay waxaana arrinkaas suurtageliyay waa aqoonyahanka duqayda iyo bulshada magaalada Boorama iyo gobolka Awdalba oo danahoogii ka hormariyay danta guud iyo daryeelka dalkooda waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhowna inay noqoto magaalooyinka ugu caansan Soomaaliland Soomaaliya iyo geediga Soomaalidu degtaba haddii aan isla garanno meesha aan u soconno iyo waxa aynu doonayno aragtideeduna isku mid noqoto halkaa waynu gaari doonaa haddii la rabo adduunka safar ayaa lagu jiraa ilaa kulanka alle ee qiyaamaha joogitaanka adduunkana waxaa loogu shaqaystaa sidii imtixaanka adagayna sugaya sidii aan uga bixi lahayn